maxay tahay sababta loo beegsado madaxda ugu muhiimsan ee Iiraan? Iiraan maxay u xakameyn laadahay sirdoonka Mossad iyo CIA-da Mareykanka? Mase sax baa in ciidamada kacaanka laga dhaxlay oo carareen markii ay fuliyeen mishinkii loogu talagalay? Dagaalka socda u dhaxeeya Iiraan oo dhinaca iyo Mareykanka iyo Israa'iil oo isxulufaysanaya waxa ku nafwaayay madaxdii ugu muhiimsaneed ee ilaalada kacaanka Iiraan oo uu ka yahay hogaamiyihii ruuxiga ah ee waddankaasi Ayatollah Ali Khamenei iyo Ali Narjin oo ahaa hogaamiyihii golaha ammaanka ee Iiraan ahaana ninka loogu cabsida badan yahay reer galbeedka. Inkastoo ay Iiraan ay argudatay oo lagu murunsan yahay dhimashada Netanyahu, sidoo kalena hore ay u dishay taliyihii cirka Yahuudda iyo madax kale oo muhiim ah, isla markaana ay burburisay garoomadii diyaaradaha, saldhigyadii ciidamada militariga Yahuudda, xarumaha sirdoonka cilmi baarista iyo ilihii dhaqaalaha ee magaalooyinka Tel Aviv iyo Haifa. Sidoo kalena ay weerartay maraakiibtii ugu muhiimsaneed ee Mareykanku u soo diray bariga dhexe. Haddana waxay xakameyn laadahay halka ay wax ka jiraan iyo cidda jaajuusaysa madaxda. Sida wararku ay sheegayaan, Iiraan waxa buux dhaafiyay sirdoonka Yahuudda iyo Mareykanka, kuwaas oo xitaa heli kara halka ay ku shirayaan madaxda ugu sareysa dowladda Iiraan. Waana sababta maalinkaas ay u dhimanayaan saraakiisha muhiimka iyo hogaamiyaasha khibradda badan. Dhawaan waxaa baraha bulshada qabsaday oo sax ahaanshaan loo hayn warar iyo sawirro sheegaya in ciidamada ilaalada kacaanka gaar ahaan kuwa ilaalinaya Ali Narjin oo qayb ka ah askari Israa'iili ah oo iska dhigay muwaadin Iiraani ah, isla markaana ka mid ah ciidamada markii uu dhacay qorshihii uu halkaasi u joogana baxsaday. Howlgallada ciidamada ammaanka Iiraan ay sameeyeen ayaa la sheegay inay gacanta ku dhigeen shabakado sirdoon ah oo ka shaqeynaya howlgallo xasaasi ah sida basaasidda madaxda, sawirrada goobaha muhiimka ah sida saldhigyada militariga halka laga helo madaxda, iyo hagidda howlgallada duqeynta ee Israa'iil iyo Mareykanku ay ka wadaan magaalooyinka muhiimka ah ee Iiraan. Ciidamada ilaalada kacaanka waxay sheegeen in iyaguna ay heleen ilo sirdoon oo muhiim ah oo ay ka faa'iideysteen, waxaana si daran u weerareen saldhigyada Mareykanka ee Khaliijka iyo magaalooyinka istiraatiijiga ah ee Israa'iil. Ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa sidoo kale daqiiqada ka hor si toos ah u duqeeyay warshada sifaysa shidaalka Israa'iil iyo kaydka haamaha shidaalka ee ugu weyn ee ku yaala magaalada Haifa, iyadoo la sheegay in weerarkaasi ay Iiraan u adeegsatay gantaalka Khaybar Shikan, sida uu sheegay wargeyska Ingiriiska ka soo baxa The Economist oo soo xiganaya taliska dhexe ee Mareykanka. Iiraan sidoo kale waxay weeraro xooggan ka geysatay wadamada Khaliijka sida Qatar, Imaaraadka Carabta, Sacuudiga iyo Bahrain oo ay ku adeeysay in dhexdooda laga soo tuuray weerarada lagu qaadayo waddanka Iiraan. Taasina jawaab uga dhigtay weeraro isdaba joog ay ku qaado xarumaha muhiimka ugu waaweyn tamarta